shirka samatalis oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka socday magaalada Burco ayaa maanta si rasmi u soo gabagaboobay. Shirka ayaa labada beelood ay kaga wada hadlayeen iskaashiga iyo horumarka deegaamada ay wada degaan. Shirkan samatalis oo soconayay 4 casho ee ugu dambeeyey ayaa gabagabadiisii waxaa laga soo saaray qodobo ay ku heshiiyeen labada beelood. gabagabadii shirka waxaa la isla gartay qodobada hoos ku qoran. 1. shirku waxa uu ku baaqayaa in xukuumaddu hirgeliso ku dhaqanka shareecada islaamka. 2. waxaa heshiis iyo is-afgarad buuxa laga gaadhay wixii tabashooyin jiray beelaha dhexdooda waxayna ku dhammaysteen walaalnimo iyo is-afgarad. 3. in la dhammaystiro wixii ka hadhsan nabadda gobolka Sanaag. arrintaas waxaa loo xil saaray guddi ka kooban 21 xubnood oo isugu jira salaadiin, cuqaal iyo waxgarad. guddigaas oo aanay ku jirin ardayada wax kala gaadheen. 4. waxay labada beelood isla qaateen in si wada jir ah wax looga qabto horumarinta deegaamada ay wada degaan sida tacliinta, caafimaadka, wadooyinka iyo dhammaan adeegyada aasaasiga ah. arrintaana waxaa loo magacaabay guddi guud oo ka kooban 25 xubnood. 5. guddiyada horumarineed ee heer gobol waxaa ka mid noqonaya beelaha kale ee deegaanka ah. 6. si loo xaqiijiyo loona taabageliyo go'aamada taariikhiga ah ee ka soo baxay shirkan waxaa loo xil saaray guddiyada labada beelood iyo hoggaanka dhaqanka. waxaa kaloo labada beelood warmurtiyeed ka soo saareen xaaladda guud ee dalka iyo duruufaha ku xeeran. qodobka 1. waa in la wada ilaaliyo qarannimada iyo midnimada Somaliland. 2. golayaasha qaranku waa in aanay ansixin xeer kasta oo ka hor imanaya shareecada islaamka. 3. shirku wuxuu ugu baaqayaa golaha guurtida in uu ansixiyo guddigii culimada ee dastuuriga ahayd. 4. shirku wuxuu si buuxda u taageerayaa go'aankii ay wada qaateen xukuumadda iyo axsaabta qaranka ee ahaa in sanadkan gudihiisa 2020 la qabto doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka. 5. shirku wuxuu ugu baaqayaa xukuumadda inay fuliso heshiiskii ay la gashay Khaatumo. 6. waxaa kale oo shirku ugu baaqayaa xukuumadda Somaliland inay si cadaalad ah iyo sinaan ah u qaybiso xilalka dawliga ah iyo mashaariicda horumarineed. maamulka gobolka Togdheer iyo taliska ciidanka booliska gobolka oo ka soo qayb galay gabagabada shirkaasi ayaa soo dhaweeyay go'aamada shirka laga soo saaray. sidoo kale salaadiinta labada beelood iyo ergooyinkii kala duwanaa ee ka soo safray gobolada dalka ayaa iyana dhankooda shirkaasi ammaanay. waa shir walaalnimo, waa shir wadaninimo, waa shir aanu doonayno beelahoo dhan inay isugu yimaadaan oo wixii danana kaga wada hadlaan oo isku laab xaadhaan. waxaana leeyahay shirkaasi wax naxal iyo turxaana midna ma wato. annaguna Somaliland u maarno dadkaa meesha fadhiya isu yimina waa reer Somaliland. waxaan ku soo dhaweynaynaa horta gacmo furan cid kastoo meeshaa shirkaan uga soo qayb gashay. waxaan leeyahay maaha shir laba beelood waa shir qaran buu ahaaye sidaa ku bushaaraysta. waa ka qaran weyn yahay oo ummaddiinni baa usoo fikirayseen oo qarankiinni baa usoo fikirayseen oo qodobadan meesha ka soo baxay qodobo waaweyn oo shiris bay ahaayeenoo dee kuwii G8 ka soo baxay oo kale ah. waa idinka mahad celinaynaa, anagu baa noo shaqayseen. shirkan waa soo dhaweynaynaa, aad iyo aad baan ugu faraxsan lahay inaanu ka soo qayb galno qodobadiisii iyo gunaanadkiisina aanu goobjoog ka ahaano.
qodobo fiican baa halkan laga soo jeediyey run ahaantii marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad anigoo ku hadlaya dhammaan shacabweynaha reer somalilan meel kastoo ay joogaan gaar ahaanna waxaa la yidhi daxalka geel ma wada xidhaan oo hadday wada xidhaan ma wada xejiyaane xagga hartiga naloo sii eegayo sideedaan u qaadanay qodobadaa waanu ku faraxsanna inay biyo kama dhibcaan yihiin qadiyadda arrintaa isku imashadeedu maanta inay ahayd dhan walba marka loo daymoodo xag degaan iyo xag dhaqan xag waxwada lahaasho iyo xag siyaasadeed marka la dayaba inay ahayd arrin madagashin bay dhacday wakhtigeegii timiday aad iyo aad iyo aad baan ilmaadiryaal inugu bogaadinaynaa dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waa looga soo ducaynayey inuu shirkaasi sidaa maanta loogu dhowqay u hirgalo oo la ysku afkarto oo la ysku saamaxo oo lagu walaaloobo waxaana dan ay u noqon kartaa somalilan oo dhan wax somalilan u dana oo dalka u dana oo deegaanka u dan un baanu ka hadlaynay xaajadayada intaasaanu ku soo ururinay beelaha aanu casuunay ee walaalahaya ah ee na soo ajiibay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin jasaakumullahu khayr masaafooyin aad u dhaadheer baad ka timaadeen iminkana sii mari doontaan boqorradooda iyo garaadadooda ee madashan aanu ku casuunnay noogu yimi ee nagu soo sharfayna waa idiin mahad celinaynaa mahadda labaad waxaan kaloon idinka celinayaa go-aanadii aanu gaadhnay iyo fadhigii gogoshaanu idinku yeedhnay sida quruxda badan ee niyad samida ah ee aad noogu bogaadiseen ee noogu ducayseenna waa idinka mahad celinayna waxaanuna diyaaru nahay labadayada beelood wax kasta oo somalilan beelaheeda waxyaabaha cilladaha dhex yaalla lagu saarayo la isugu soo dhowaynayo lagu midaynayo waxaanu diyaaru nahay wax kasta oo waxtar u leh jiritaanka iyo midnimada iyo walaalnimada iyo xoojinta dawladnimadeenna iyo horumarkeenna baanu diyaaru nahay in ay ku gebagabeeyaan wixii dhexdooda yaallay ee ay abuureen maaragtay nidaamka ama arrimaha siyaasiga ahi iyo in lagu adkeeyo nabadgelyada maaragtay deegaanadii degaan iyo in ay ka tashadaan umuuraha horumarinta ee ku saabsan deegaanada ay wadaagaan mahad cali goodir star t v burco